Jimcaale Jaamac Takar oo ahaa taliyihii ciidanka danab ee dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qaabilay Villa Soomaaliya wuxuuna kulan gaar ah la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. kulanka oo qaatay ku dhawaad 3 saacadood oo xiriir ah waxaa ka qayb galay wasiirkii hore ee maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Xasan Shire Abgaal, madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Cabdiqaadir Firdhiye, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Aar iyo xubno kale oo ka mid ah dowlad goboleedka Puntland mucaaradkana ku ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. kulanka kadib Villa Soomaaliya ayaa si hoose taliya Jimcaale Jaamac Takar waxay ugu magacowday taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka militariga Soomaaliya fadhigooda uu noqon doono banaanka magaalada Garowe, taasi oo noqonaysa dharbaaxa culus oo ku dhacday Siciid Cabdullaahi Dani. Jimcaale Jaamac Takar muddo ayuu ku naawilayay in xilkaasi loo magacaabo, ugu dambeynna xasanka xilka uu ka dhamaaday go'aankaasi waa uu qaatay sida ay tilmaamayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ay soo xigatay telefishinka Hemelo. ciidanka danab ee dowlad goboleedka Puntland hadda wixii ka dambeeya waxay noqon doonaan cutubyo hubeysan oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxayna ka dhinac dagaalami doonaan ciidanka dowladda ee ku sugan koonfurta Soomaaliya haddii loo baahdo. si kale haddaan u dhigana ciidankaasi waxay fulin doonaan danaha dowladda Soomaaliya ay ka rabto dowlad goboleedka Puntland sida uu Himilo u sheegay mid ka mid ah xubnaha muhiimka ah ee ku sugan gudaha magaalada Garowe. Dani waxaa la sheegay inuu haysto culays xooggan oo uga imaanaya ururada bulshada, qaybaha siyaasadda iyo sidoo kale saamiley la sheegay inay mucaarad yihiin kuwaasoo u janjeera dhinaca Villa Soomaaliya. dad badan sidoo kale waxay qabaan in ciidankan oo dib boorka looga jafo isla markaana toos loogu daro militariga Soomaaliya Dani uu arko shar aan la yareysan karin isla markaana uu ka hortagi doono. khilaafka u dhaxeeya Garowe iyo Muqdisho waxa uu gaaray halkii ugu sareysay, dhinacyaduna xataa telefoon iska daayay, warbaahinta ayay iska dhaleeceeyaan. dhawaan waxa warbaahinta la hadlay wasiir dowlo ka tirsan madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland wuxuuna ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka xilka uu ka dhamaaday in uu ku takrifal awoodeed wado, isagoo sheegay inay ka warqabaan ciidamada tirabeelka ah ee lagu daabulayo deegaanada Puntland. geesta kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo BSF horeena uga tirsanaa dowlad goboleedka Puntland ayaa iyagana la filayaa in la qarameeyo laguna daro ciidamada hoos imaanaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. Puntland markaa joogtid labada ciidan ee ugu tababarka wanaagsan waa ciidanka danab ee hadda toos loogu daray ciidanka militariga Soomaaliya iyo ciidanka kale ee la yiraahdo BSF oo iyana la dagaalama kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish ee ka dagaalama buuraha Calmiskaad ilaa buuraha Galgala ee gobolka Bari. labadaasi ciidanba bilihii la soo dhaafay ama sanadihii la soo dhaafay dhowr mar oo kala duwan ayay dagaal la galeen Siciid Cabdullaahi Dani, dhammaanna waxay fuliyaan danaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo inoo sheegay xubin ka mid ah maamul goboleedka Puntland. waxay ku soo kordhaa wadayaal telefishinka Himilo ayaad kala socon doontaan.